sida la wada socotaan wasiirka amniga Mr. Ducaale taliyaha nabadgelyada sirdoonka Sambalolshe iyo taliyaha booliiska Masar Saacid diyaaro ayaa waxa ay si wadajir u qabteen shir jaraa'id iyagoo u hanjabay shirkadaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho. waxaa is weydiiyay marka hore taliyaashaasi iyo wasiirkaasi dhamaantood ma wasiiro iyo taliyaal gobolka Banaadir ee Muqdisho kaliya mise waa taliyaal iyo wasiir Soomaaliyeed oo matala Jamhuuriyadda Soomaaliya. dabcan waa wasiiro iyo taliyaal xilkoodu uu yahay inay matalaan guud ahaan dalka Soomaaliya laakiin iyagu awoodooda ay ku kooban tahay magaalada Muqdisho oo aan ka hadli karin maamulada kale ee dalka ka jira. waxay ku hanjabeen oo ay sheegeen in shirkadaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho ay Al-Shabaab lacag siiyaan laakiin kamay hadlin shirkadaha ganacsiga ee ka jira gobolada kale ee dalka iyo maamulada Al-Shabaab lacagta siiya. waxaa is weydiinaya markaa laba su'aalood oo ku saabsan shirkadaha ganacsiga ama ganacsada magaalada Muqdisho ma siiyaan Al-Shabaab lacag haddii ay u diidaan samaxa dhici kara. sidoo kalena waxaan ka jawaabayaa shirkadaha ama ganacsada guud ahaan ka jira dalka Soomaaliya Al-Shabaab lacag ma ka qaataan. waxa kale meesha yaala Al-Shabaab ma baadaan ganacsatadu mise iyaga taageero iska siiya lacagta. arrinta kale muhiimka ah waxay tahay ee xisaab badan dawladda Soomaaliya habkeebay u maraysaa in la xisaabtanto ganacsada lacagta siiya Al-Shabaab. waayahay horta waxa weeye xaqiiqada haddii la iska indhatiro wax badan ayaa qaldamayo dadku runta ma jecla. waxa weeye nimanka Al-Shabaab la yiraahdo waxay ka qaadaan lacagta baadda ah ee shirkadaha dukaan walba iyo goob kasta oo dalka Soomaaliya ku yaala. iska dhaaf kaliya shirkada ganacsi maamulka arkaysan Soomaaliland lacag ay ka qaadaan sanad walba baada oo wixii ka dambeeyay 29 Oktoobar weerarkii Hargeysa ka dhacay wixii ka dambeeyay macaamilkaas ayaa u yaalay oo ah inaysan iyagana soo weerarin lacagna la siiyo. lacagta ayaa la siiyaa shabaab ay ka qaataan. shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ku yaala Soomaaliland lacag ay ka qaadaan baada. shirkadaha ku yaala mataqaana Puntland lacag baad ay ka qaadaan. shirkadaha ku yaala Jubbaland iyo Koonfur Galbeed lacag baad ay ka qaadaan. meel aysan lacag baad ka qaadin waxa ka jira maamulka Galmudug ayaa ka jira iyo Hirshabelle xitaa deegaanka ka tirsan wad ogtiina way ka qaadaan. gobolka Banaadir sidoo kale dukaan walba ku yaala lacag baad ay ka qaadaan. marka waxa la yaab leh madaxdan amniga kuwa sheeganayo shirkadaha laftooda lacag baad ay ka qaadaan. maxaa yeelay lacagtan ay ka qaadayaan shirkadahan qasab bay uga qaadaan maxaa yeelay amaankooda ma sugi karaan. qofka aan caafimaad haysan waxbarasho caruurtiisa haysan shirkadana amni haysan lacagta laga qaado maxay tahay macnaheedu lacagtaha waa baad weey baad shabaab ka qaadaan oo kale ay ka qaadaan oo ah haddaad bixi weysan wada xiriina. marka wasiirka amniga ee taliyaha nabadgelyada kan booliiska haday og yihiin in shirkadahan argagixisadu ay baad ka lacag ka qaado canshuur ah ama sakaawaad ama magacyo kale loo bixiyay dadkii ka qaada maxay ku soo xiri waayeen maxay u soo dili waayeen maxay uga daba tigi waayeen waa ayaan darooyinka macnaha taagan. maxayse kubaan uga hadlayaan kaliya gobolka Banaadir oo isan gobolada kale dalka uga hadlay. waxa weeye arrintaas waa arrin siyaasadeed weey. waxa weeye reerka gobolka Banaadir degay hawiyaha la yiraahdo waxa lagu sameeyay kow xilka dhigis baa lagu sameeyay. labo hubka dhigis baa hadana la dabcay in lagu sameeyo inkastoo ay fashilantay guul daraysatay. saddex sidii hore loo sheegay oo dad qowmara ah oo aan kamid ah u sheegeen maanta waxa weeye waa dhaqaale ka dhigis ama hanti ka dhigis ayaa ku socota. qorshahan ma aha qorshe uu Sambalolshe leeyahay ma aha qorshe uu leeyahay wasiirka amniga Mr. Ducaale ma aha qorshe farmaajo oo wata weey.
ujeedkuna ma aha bartilmaameedku in la waxyeeleeyo shirkadaha ma taqaanaa ma ahan in la waxyeeleeyo shabaabka lacagta siiya waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ma indhaha la yihiin maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cali Masaarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jooga Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo ka qayb galay maamulaha guud ee ma taqaanaa shirkadda Hormuud Telecom Axmed Sacuudi ma ka qayb geli karay Cali Masaarka madaxweynaha hadduu ka qayb galo waxa xaqiiqo ah in Axmed Sacuudi iyo kuwa la shaqeeyay shirkadaba intaba shabaab ay dil lahaayeen oo qarxin lahaayeen laakiin Cabdirashiid Maxamed Ducaale maamulaha Dahabshiil markuu ka qayb galay Cali Masaarka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax qarxii ma aragteen wax u hanjabay waa maya halkaas waxaad ka sawir kartaa shirkadaha lacagta baadal looga qaado iyo kuwa iyaga taageera wax siiya ay is aaminsan yihiin haddii Hormuud Telecom shabaab lacag wajito ay dhahdaan waxa soo lacagan ka rabnaa ee ay diidaan xaqiiqo weey gobolada anteenooyinkooda kaba taagnaanayaan xaqiiqo weey maamulkooda waa la dilayaa meel walba loo taagan yahay ninka shirkadda isgaarsiin u haystaa gobol kasto dalka ha sameyn oo bataqaana ayuu rabaa inuu ka howlgeliyo gobolladii qaar shabaab joogo magaalada caasimadda shabaab waxay rabaan ku qarxinaya waxay maalinta dabaqa dheer ay gelinayaan jig ay gelinayaan marka waa arkay warbixintii ra'iisul wasaare Khayre uu beesha caalamka siiyay ee ahayd mataqaanaa in shirkaduhu mataqaanaa qaarkood ay shabaabka maalgeliyaan marka waxaan leeyahay adigu waxyaabaha la isku xirxiraya dadka shirkadaha sida qaaska u taageersan shabaab ee siyaasad ahaan u taageersan ee mabda ahaan u taageersan ee lacagta siiya waa la yaqaanaa dadka lacagta sekada u aruuriyo shabaabna waa la yaqaanaa dawladdu kuwaasay ahayd inay bartilmaameedsadaan ee ma ahaynin dukaan ay iyagu amaankooda sugu waayeen oo gobolka ku yaalo iyagu baad ka qaadaan in argixisada baad ay ka qaadaan leeyahay kadibna xoolihiina la xaaleysana oo la dhaca waxa weey waa sharci darro weey shirkadaha ama dukaamada ku yaala gobolka Banaadir in si gaar loo bartilmaameedsado oo la dacayday waxa weey waa sharci darro weey in lacagta laga qaadayay ee ay bixinayeen baadda ahayd ay ka qaadayso dawladda Soomaaliya ee aan wax loogu qabayna amaankooda aan lagu sugaynin in lagu sii dacaydeeyo waa sharci darro weey in ma taqaan loogu sii hanjabo waxa weeye xilka dhigistii hubka dhigistii oo lagu soo diray dhaqaale ka dhigis ama hanta ka dhigis weeye waxa weeye in caalamka loo muujiyo in dadka gobolka Banaadir degan iyo gobolada ku xeeran kaliya ay argixisay yihiin kuwa kala ahayn macnaha wasiirkan qaran ee gobolka Banaadir kaliya ka hadlaaya dacaydeynaya waa wax loo soo dhiibo weeye sharci uma aha mana handadi karaan shirkadaha ganacsiga wasiir amni iyo taliye baarlamaan ayaa dalka ka jiro hadii ay og yihiin waa inay soo qoraan cadeymihii ku soo lifaaqaan baarlamaanka u keenaan kadibna baarlamaanku uu arinta u ansixiyo laakiin iyadoo sharciga la dagaalanka argixisada la meel marin oo la ansixin in shirkadaha magacooda inta la soo qaatay loo hanjabo waxa weeye waa ujeedooyin fog weeye laakiin kuwa kale hoos joogiyaasha ah waxaan maqlayay Sambolo Shumaad 500 kuna loo geeyay qolooyinkii ganacsatada u geeyeen waxaan maqlayay ninkii ra'iisul wasaare Khayre ahaa $2 milyan siiyay shirkadihii uu magacaabay marka lacagta baadana iska gornayaan gobolka si gaar ah loo propaganda marka waxa soo dhawaa wax maxaa Cabdullaahi Farmaajo wato waa arrin iska qabiilaysan waxa weey arrin kaliya looga hadlayo deegaan gaar looga hadlayo oo guud ahaan dalka looga hadli karin dawladuna iyada ku fashilantay inay amaanka wax ka qabato dawladda Soomaaliya ay amniga caasimadda xaqiijiso shabaab cidna baad kama qaadeen haday amniga dalka Soomaaliya xasiliso shabaab cidna kama qaadeen laakiin iyaga yaaba isku haysta maalin walba agaasima xilka qaaday kama qaadi kartid sidaan weeye ra'iisul wasaaruhu ku qabiil yahay aniga wax iga ma girin hebel la iska eriyo iyaga is haysta maalin kasto
ayagii ayaa isaysta maalin kasto ayagii maalin walba soo taagan dhaqaalaha 90% oo koray igu sawir maya anigu ma dhihin 90 oo koray ayaga kala hadlaayo maalin walba isku dhigan kan waxay la tahay dadka gobolka Banaadir maanta dhimashadu way yartahay maanta dhimashadu way yartahay maanta dacaayadu way yartahay ganacsada gobolka degan ee qabiilka hawiyaha u dhalatay waxaan leeyahay maanta jaanis istaan maanta xoolihiina quura nimankaan argixisada ah ee argixisada waxba aan dhaaminay sida February waxaan dhihi lahaa kula tali lahaa maanta ka hortaga wala og maalin kasta waxay beesha caalamka u gudbiyaan وبعدين كقاضي ولا وده أجيها حد وأجنها شيء درها مركيه هلا لعجها بعد هذا وجيسين وروح عسي وحبي إذا كعلم ما يصو أيجي الشباب واسكول نقل أيجي الشباب واسكور كمان وعدت هو شو يقولون واي ما أنت اللي مشهور يرتاح بريوي وبلاد دون تاي ما أنت اللي مشهور يرتاح اسكودية إنت كان لسكي عليو ولا لا حساب تمو ولا جهر تمو اللي بعد برا كانوا على الشقديني يوسف السيد طريق نبى سقوط قبصانه شقدي نقبصده شركتها أرجع حساب تاجرة قد يدهان التاجرة كلا جوين تدل كان كشقين يعني ولا أجي إنها يلا قرصنة حتى وحكي قبكرتها وحكي قبطة ها وقعدنا هرمود تلكم الشركة اللي مانتا وحا إسكالكم منان كن أو قيس ميدو أحمد سعود اللي هماها ميدو أحمد نوع الجمعة اللي هماها ميدو قفك اللي هماها وشيل هولدرز وشركة سو تجي أما dad isu tagay oo qof kasta saami uu ku darsado shirkadda weey marka ninka uu hanjabaya shirkad dad isu tagay ay leeyihiin oo kumanaan kun oo qoys ah ama qof ah waxaan leeyahay garaalaa waa tahay waxaad aragtaa shirkadda oo qof leeyahay argixisada soo maalgelisa taas u baahan la xisaabtanto ayaduna waa inaa wado sharci u soo martaa marka la xisaabtamo sayna isaga durduriso maaha waad ogtiin shirkadda sida tooska ay shabaab u maalgelisa ee lacagta u siisa ee aaminsan cidkii ay doonaan ay u diraan ee meeshay doonaan ay u qarxiyaan waa wada ogtihiin shirkadda wada leeyahay maaha waa shirkad hal qof uu leeyahay oo maamusho haddii wax laga qaban karo wada sharci idoo loo maray wax laga qabto laakiin wax sharci darada la ordaayo anigu waxaan u arkaa dhaqankii shabaabka oo kale inta ah dhaqan lagu bartilmaameedsanayo dad gaar ah oo lagu dacaydeynayo dhaqan raba lacag baado hor leh in looga qaado shirkadaha ganacsiga waa daahir calasow oo idin la dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiiso